السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ازيك؟ يلا مجدو. ما شاء الله waxaa kaa rabaa baan ka saarnaa Afrika maxaan ku rahdaa sida Ethiopia ma laga qaadin ماي laga qaado ma la rajeynaa maalmaha soo socda waqtiyada hadda soo socda إن شاء الله رجينا because محكمة سعته وحي كصبح وأكيد دونا. aywa موت قال أبدأ على المرقل واقف سلام قراد سلو هاي كوسع قراد واقف سلام أوكي قال سلو ديريس هذا مين مقشع هاي ديريس واك سلامي qof oo caadi qaxooti ku imaaday green cardkii uu ka dhacay markuu xareysto ma saameynaysaa wadamada Soomaaliya xayiraadii waxaas listiga macnaha wadamada hadda sheegaysa 39 wadan ma saameynay والله جوابتك هو ما قرن كرو قف جرين كار كدعي بانكي سارنا صدن سغالك ودن already قف كان جرين كار هرو هيستي وهذا كيسكيس لما بروف قرينايو كاركم با كدعي أما كدومي USCIS تقوليه waxay arintaas ka sameeyay ma garan laakiin banki waa laga qaaday soo haduu ka dhacay ama uu ka dhumay in hore ka xareysato waa fiican mid kalena mid waxa xareeyay December xareeyay ilaa December la hada waa fiiriyaa USCIS ta waxaan ku arkin mid ogaada messenger ku qoran ay leeyihiin we are working your case we will contact you when we find accurate information عمل waxa saas ku qoran صح way mid ogaada qofka markuu green card helo wuxuu noqday permanent residency noqday wuxuu helay deganaansho rasmi ah ayuu helay macnaheedu ma aha haduu green cardki ka dhumo ama green cardki uu ka dhaco inuu deganaanshihi uusan ahaanin macnaheedu ma aha still recordka waxa kugu jirta inaad deganaansho haysato kaarka un baa kaa dhacay ama kaa dhumay laakiin hadda qofkaas haddii hadda maanta sheekadii ISO kale soo laabato ay qabtaan systemku waxay uga jeedaan inuu qofkan wadankan uu deganaansho rasmi ah ku haysto taana ma dhacdo kaarka un baa dhaco oo la cusboonaysiiyaa laakiin taa ma dhacdo mar haddii lagu siiyo in xuquuqda lagaa qaado ama adiga aad iska celiso waa gooni waay laakiin taa ma dhacdo. Okay. Thank you Idris. Idrisow waa ku salaamay saaxiibow qol iyo Afrika waxaan kugu salaamay waxaan ku weydiinayaa oo qura qofka dhawaan soo galay xilligii Trump dalka qabsan rabay qofka soo galay kinin kaarkiina xareystay sidee buu ku ogaan karaa kinin kaarkii xageesay wax marayaan bal arinta iga waran wax fara badan baan doonay inaan wax warbixina waliba wax fara badan baan doonay waliba inaan adiga xiriir iyo calaaqad ku yeesho si aan u ogaado bal kinin kaarkii in la furay in xaaladiisu meeshay marayso qaybta kinin kaarkii iga waran ma la furay muddo intee la ka xariisay wallahi hadeer adigu muddo 5 bilood 6 bilood meelahaas wax xariisay 5 bilood waa 5 bilood waqtiga ma loogu talay xataa qofka waxa loogu talagalay sanad markuu ka xariisay kadib inuu dhaho green cardka waa iga maqan yahay waa iga soo dahay sharcigooda waxay yihiin wuxuu yahay in qofka sanad list ay haysan karaan minimum ugu yaraan marka 5 bilood 6 bilood waqtigeedu iska yahay taas waa qodobka labaadna been baa saarnaa 39 wadan oo ay Soomaaliya iyo wadamo badan ku jiraan tiina waa laga qaaday shaqadina inay bilaabanaysaa loo sheegay marka just ma waa un waqti oo ina iska sugto weeyaan bis laakiin wax kale oo dhibaato ah waliba kaaga adiga specifically kaaga maadaama 5 bilood 6 bilood oo ka maqan yahay haddana bank laga qaaday marka nasiibkaaga waxa laga yaabaa processka inuu ku bilowdo oo soo ka soo daahin oo ku imaado macquula
waayo dadka already qaar baa 2 sano sugaya, qaar baa ka badan sugaya, qaar baa sanad sugaya. marka iska sug. marka waxaan ku weydiinayaa qofka haysta green card haysta ma aadi karaa wadanka Ethiopia oo kale ama Kenya oo kale ma u bixi karaa? qofka hadduu green card haysto oo active ah, wax dambiyana ku jirin, passport Ethiopian ama Kenyan ama Somali uu haysto ama travel document uu haysto, wuu safri karaa, wax dhibaato ah kama taagno. ما شاء الله والله way anigu adiga ma ku dhageystay maalin weeto warbixintii koowaad ee aan helo in la fasaxay oo maxkamadii ay ansixiyeen in green cardkii dadka loo shaqeeyo cidda quri aan ka dhageystay aan xitaa dadka ugu warbixiyay adigu ahaa waana ku soo dhaweynayaa waana dhawaay farada waana ku salaamayaa. aywa insha Allah Allah fadhiyo. war saaxiib waan ku salaamay saaxiib waan ku salaam kowden maad maqlaysaa? ay ku salaam. waxaan ku weydiinayaa horta marka koowaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa update-ka aad markastana siiso, waa kula socdaana. iyo waxaan ku weydiin rabay 75 countries-kii la saaray banka booska max update ba miyaa kasoo baxay? because waxaan daawanayay ma garan kari janalo badan oo luqadda Englishka ah oo ka hadlayaan arkayay. ma waxaa jira load suit oo New York laga xareeyay oo hadda la rajeynayo in go'aan laga soo saaro, mise go'aan baa jira oo soo baxay in bankaas maxaad warka haysaa? walaalo horta 75 countries-kii 75 wadan banki intaan warbixin ka hayo banki wali uu saaran yahay waa kow. maxkamad way jirtaa New York ka socoto wali way socotaa oo qodobka labaad. wax laga qaaday oo dadkaas hadda la leeyahay waa laga qaaday oo run ah oo cadeynteeda aan hayna ma jirto. rajada ay leeyihiinna waxaa weeyaan maxkamadaas go'aan ka soo baxo, taana hadda soo baxo isla haddaba wargeysyada caalamka waaweyn soo qaadanayaan sida New York Times ku arkaysaa, CNN ku arkaysaa, Reuters ku arkaysaa, yani meelada ku arkin malaha. haddii hadda maanta ay maxkamadda go'aan soo saarto everybody caalamka daqiiqad kadib wuu ogaanayaa. wax qarsoomaya ma aha, wax aad loo wada sugayo weyn. wadamo waaweyn baa ku jiro, Egypt yaa kamid ah, Russia kamid ah, Brazil yaa kamid ah. waa la sugaya insha Allah 75 wadan. warwaa ku salaam saaxiib. ku soo ka qaadan saaxiib dhinaca green card-ka lama hadlayo, dhinaca CDL-ka kala hadli rabaa. inoo beriyahan waraaqado inay noo soo dirdiraan bilaaween oo dadka darbiga ka soo boos CDL-ada wato awal DOT markuu ka dhacay soo cusboonaysiinaysa lagu qabsanaya. hadeertan adoo iska socotida waraaqad ku soo dhacaysa, waxaas maxaa warkaysaa? walaalo gobollo badan bay arrintaa ka socotay oo hay'adaha ugu dambayso gobolkii arrintaa bilaabay. arrintan waxay salka ku haysaa budgetka DOT-da ay bixiso, lacagta dhaqaalaha DOT-da ay siiso gobollada ama dowladda federaalka ee gobollada ku soo celiso highway transportation funds-ka loo yaqaano. gobolladii waxaa lagu qasbay in gobol walba oo non-domicile-kiisa uu hayo inuu qayb ka mid ah mataqaanaa uu kala laabto, revoke uu ka sameeyo, downgrade uu ka sameeyo, qaybna uu sii wato u daayo. at least qorshe waxay dejiyeen sanad walbaba in qayb maaragtay hawada lagu cuno. marka gobolka kaliya arrintaa diiday wuxuu ahaa New York State oo kala saaray oo dhahay at least kuwa non-domicile-ka gobolka dhexdiisa way ku wadan karaan gaariga, haddii ay u diidaan inay ka baxaan gobolka within New York State way ku wadan karaan. laakiin gobollada kale oo dhan way qaateen. marka qofkii downgrade loo soo dirayna ama medicalkii ka dhacay oo saasa xilligaas lagu ogaaday, ama warqadii work permit ka dhacday, ama waxaa ka dhacay laysinkii, sidee noqotaba nasiibkiisa un bay mataqaanaa qofkaas helay. optionno badanaa furan. tusaale qofka maanta New York haddii hadda u wareegsado ma laysinkeyga halkaas oo address wax dhan u wareegsado, ma laysinkeyga halkaas CDL-ka ma iga siin karaa mise haddana dib dambe imtixaan soo galay ay dhahayaan? haya inaa ka carar rabaaye. haya dadka dhan waa loo soo wada diray.
okay horta marka hore intaadan wareegsasho sameynin waa inaad wax walba iska hubisaa marka hore kow labo New York waxa ay ogol yihiin waxaa waaye non-domicile-ka oo gobolka gudihiisa bes ka shaqeynayo means like xataa haddii aad haysato CDL oo non-domicile haddaa haysato oo New York State ah still waxa weeyaan gobolka banaankiisa kama shaqeyn kartid because taas ay ka dagaalameen oo ay u diideen inay federaalka maaragtay ay ka qaataan ama New York inay wadanka banaankii gobolka banaankiisa inay mataqaanaa kaasoo ku siiyaan awood uma laha taas already waa laga hor istaagay maxkamadina laguma guuleysan maxkamad baa hadda muddo sanad iyo xoogaa had socotay September 2025 ay bilaabatay adii October 2025 ay bilaabatay ilaa hadda weli maxkamad baa socoto oo ay saaran yihiin qolyaha non-domicile-ka iyo DOT-da FMC sida isla socdaan marka qofkii Ohio jooga loo soo diray adiga warqadda markay ku timid labada option lagu siiyay maxaa qaatay option kee qaatay ma anigu la xabadiga ma dhicin laakiin saaxiibadii way ku dhacda baash okay qodobkee qaateen hearing-ka may dalbadeen mise waraaqahooda geeyeen wali option ba ma qaadan habeen horeetay u soo dhacday okay ka aamusnaanta waa automatic weeyaan taasa ugu daran qofka hadduu warqad intee u soo dhacdo iska ignore gareeyo ama iska tuuro ama uu waxba talaabo qaadin taa waa guarantee oo downgrade ah laakiin labada option waxa waaye midna qof waxa leeyahay qofka waxa leeyahay ama hearing qabso in lagu dhageysto case-kaaga ama BMV-da tagay waraaqahaaga keenay submit garay marka waxa ugu horeeya target gareynayaan waxa weeye 5,000 markii loo diro dadkaas waraaqaha dadka ka soo jawaabi waayay labada qodob dadkaas way dadka ugu horeeyay ee downgrade-ka lagu sameynayo dan waxa ku xigi doono labada qodob ee qofka qodobku qaato waraaqadihiisa la fiirinayaa Leo hatta basaska xitaa way ku jiraan maxaa basaska xitaa waa la istaajiyay wallahi taa ma garan karo wiilka wuxuu leeyahay federal judge put on hold arintaas nagu soo haddaan isku qodob ka hadleyno rabsho bal faahfaahin naga sii ama linki noo soo dir meeshaad ka aragtay aan fiirine waa good news arrinta hadday dhacdo marka waayahay dadka kale aan jaanis siinaya walaalkiis I hope inaan ka jawaabo su-aashaada yaa yeah thank you brother Idris walaalo waa soo laabtay sorry Holland ma lagu tagi karaa green card hataa internetka in laga fiiriyo waaye xiriirka waxay ku xiran tahay ka dhaxeeya I mean transit waa lagu maraa laakiin inaad ku dhex tagto waxay ku xiran tahay xiriirka because weligay Holland iyo green card isku soo qaado sugada aan ku fiiriyo dadka waxa u malaa green card-ka waqti wadamo badan aan lagu tagi karin baa jirto especially green card-ka haddana passport-ka la socday ku xiran tahay okay Holland passport nacay wadataa passport dan mooti travel document ya ha taas xitaa ma loo baahan yahay oh yeah green card sidiisaba kaligiis laguma bixi karo green card-ka waa inay weheliso ama travel document ama passport waa inuu weheliyo midkood iskama kaligiis ma shaqeeyo صح haddana haddii noqoto green card hadda waxaa ku qoran Netherlands waa lagu tagi karaa ku qoran laakiin waxay ku xiran tahay passport-ku qofka wato passport-kaas iyo xiriirka ka dhaxeeya Netherlands ku xiran inaad visa hesho ما سهلنا marka baad mahadsantahay hello brother Neo TBS markii ugu dambeysay aan fiiriyay in go'aanka la sugayo Supreme Court-ka uu soo bixi doono iyadoo laba qayb ah qaybta Heshiyaanka iyo Syriyaanka oo dhinaca iyo qayb TBS-ta guud ahaan waan maqlay laakiin wax ka soo kordhay arrinta TBS-ta ah ma maqlin haddana waa eegaya hadda wax soo kordheen
waana wax weyn oo la wada sugayo wey meel walba laga maqli lahaa hadday jiraan wax breaking news ah Supreme Court go-aanka Supreme Court la sugayaa weli waxaa ku qoran Supreme Court is currently reviewing Trump administration decision to terminate weli way review garanayaan ku qoran go-aan weli may qaadan maraan aan akrinay waxaan ku arkay in xogaa xukunka u qoon doono dadka in qodayaan laga kala in odaga inay kastalaan inuu badan tahay lagaga guuleysto inay dowladda ku guuleysto waana good news new dad badan oo saa u badinaya waa jiraan heshiyaanka aad bay u dagaalamayaan asaga xataa Trump si uu kala qaado laayahay marka hore asaga wuxuu rabay inuu wadan u target gareeyo oo wadan walba oo gooni maxkamad looga gaaro go'aan laakiin qolyahan heshiyaanka u doodayo ayaa isku soo wada qabtay laba kiis oo hal xaba ah ay wada geeyeen marka muhiimaddu waxa waaye I don't think Supreme Court inay gacanta u gelinayaan 1 milyan iyo plus inuu Trump go'aan ka gaaro xaaladda wadanka lagu jiro iyadoo la ogyahay sidee wax u socdaan arrintan in case by case looga maxkamad looga gaaro go'aan ma ahe hal mar inaan Trump gacanta loo wada gelin doono laakiin waa arki doonaa go'aankay qaataan waa arki doonaa insha Allah hadduu ilaahay karaan noqdo tan kale maxkamadihii horta inta ugu badan dhalinyadii maxkamadaha la kulmaysay bay heleen marka maxay heleen alahayn diidmadii aad ka badato ma garan si fiican marka waxaa jirta marka in dhalinyaradii qaarkood hadda xataa waxaa jira kuwa maxkamad u balansan oo greenka warqadihii shaqada weli ilaa haddeertaan aan la siin oo processka loogu dhagan yahay way ka dhacda iyo kuwo kale marka ayaga qoladii waagii aad tiri maxkamada amartay tiri si degdeg ah waanaad ku fasaxdaa warqadaha shaqada iyo greenkaarada iyo waxa dhan sameyn saas sameyn arrintii maxkamadda holdiga ka qaaday ha waa ka qaaday sabab dib way ka qaadeen maxkamaddii amar baa lagu siinay shaqadii bilaabaan appeal baan xariisanay dhaheen laakiin shaqadii way socotaa wax emergency injection lama siinin marka I don't know maxkamadda cusub ay tagi doonaan iyo go'aanka si doonto ma ogi laakiin shaqadii hala bilaabayo iyagana waan bilaabeynaa ilaahin taas way socotay markii noogu dambeysay laakiin appeal ka qaadanayna leeyihiin tii kale oo raalli ahaada dadka qol ku jira waa iskaga baxayaan tii kale gabadhii marwada madaxweynaha Obama kiiskoodu waa taagan yahay Soomaaliya sidoo taagan yahay niyo kiisku waa taagan yahay ninkii calaacalka ka dhamaaday ninkii caynayay wuxuu taagan yahay laba mar buu hadda hadlay markii koowaad xogaa wuxuu u hadlay si caam ah wuxuu yiri aniga saanaan dadku u caaya mar walba iska caadi waaye I was just joking haliga qalay camal markii dambana qolyo radio podcast ay leeyihiin uu tagay oo cid laga soo duuban dhageysanay uu leeyahay waxaan ka codsanayaa hay cafisa camal marka sheekadii waa isbedeshay Allahu akbar ka baxay dad kale ku kaasiinay Idris assalaamu calaykum assalaamu warahmatullah gabadha waxay ku dhahaysaa Canada green card ma lagu gaari karaa draft documentiga ii soo dhici waaye travel document la'aantiisa horta ma shaqeeyaa green card Canada hataa ma la aadi karo I don't know Canada waagi Obama joogo lagu aadi jiray laakiin dowladtii waa la joojiyay la yiri suuq hal mar aan eegay I don't want to give wrong information laakiin dadka qaar ha u qaadanina haddii aad green card haysato inaad safri karto without way og tahay but maybe sanad isbay ka badan draft document sax waaye wax walba iska hubiya double check ku sameeya
still ama citizen ama travel document ama passport u baahan tahay kala xataa inaa ku aado. Okay, mahadsanid. Salaamu calaykum Idriso. Salaam warahmatullah. Niyo warkiina meel dambaan ka soo gaaray waxaa ka hadlayseen warqadii downgrade-ko dadka loo soo dirdirayaan iyo anigana ii soo dhacday marka ma wax xog cusub ah hadda ka soo baxay isbuucan. Waa xagee gobolkee? Ohio. warqadda ii soo dhacday anigana niyo. How long ago ku soo dhacday? Maxaa samaysay markii ku soo dhacday? Niyo waxay ii soo dhacday adiga muddo 20 cisho ka hor markii ii soo dhacday 5 bari kadib baan waxaan qabsaday heerankii baan codsaday ma garat. Sax. marka 20ka bishan hadda 20ka June buu downgrade ku dhacaya haddii aadan update samaynin bay ahayd ballantu ma garat. Sax. hearing baan qabsaday oo warqad baan u celiyay ayagii marka iigamayna soo jawaabin in la iga aqbalay maxkamad la ii balansho iyo in kale wax jawaab wali maan helin oo maybe inay maqan tahay in kale ma aqaan waan sugayaa wali laysinkana kolleyto waa valid online kan ka fiiriyay wali uu shaqeynaa maanta ma fiiriyay marka option keerta ana qaato option hadda markaan qolka soo fuulay baan dee warkiina idinkoo kasii baxay adii yar kale ku weydiinayo baan maqlayo hadda aniga optionkaygu wuxuu ahaa inaan 20ka bisha maanta bay shaqadu ii ekeed shaqeynayay aan iska suga wixii bal soo baxa laysinka in la xiro iyo inuu sii shaqeeyo aan ogaado marka kadib hadee laakiin labada option mid ma qaadatid because qofka aan jawaabta bixinin waa guarantee qofkaas waa laga downgrade lagu sameeyaa jawaab ani waa bixiyay laakiin waxaan qabsaday hearingkii baan waad codsan kartaa hearingkii dalbatay sax weeye wax badan ma ku qabteen may wax badan wali ma soo gaarin waan wacay xitaa laftirkooda xaruntoodan wacay waxay ugu dhaheen halkan waxba lagama siin karo go'aan laakiin haddii hearingkaaga ay noqoto in wax laga qabto ama codsigaaga laga jawaabiyo by mail baa haddana lagugu soo diraa warqad kale camal welina wax warqadii ima soo gaarin adii 15 days meelahaas ka soo regtay niyow horta wax judge ah oo istaajiyay arrinta oo hold geliyay ma jirto wiilka noo soo qoraayo rabsho meel ka keen information ma garanayo waan raadiyey meel ay ku qoran tahay malaha wax 5,000 ee Ohio Nandamasal CDL ka ahaa ee la yiri review lagu sameynayaa wax judge u istaajiyay horta malaha taas waa qodob waaye qodobka labaadna waxay qorayaan wargeysyada qaar ilaa 1,200 oo qof already in downgrade lagu sameeyo Ohio oo 5,000 oo waraqadaha loo diray 1,200 oo qof kamid ah in laysinkii laga laabtay marka I don't know inay sii socon doonto nabarkan maxkamadda la isla tagay sax waaye maxkamaddii way diiday arrinta inay block gareyso way diidaa ku qoran marka haddii arrintii block gareyn lahayd Ohio way istaajin lahayd ma ogtahay laakiin arrintii ma inay istaajin maxkamaddii marka waa la sugayaa insha Allah go'aankaasna wixii kaaga soo baxo nala soo socodsiyo adoo raaliya insha Allah kale waqtiga ani ay dhaheen downgrade ka la sameynaa maantu ahaa oo 20ka bishii ahayd kale ilaa hadda valid waa laysinkii wax iska bedelay ma arko waa idin soo wadaagi doonaa wixii xoga insha Allah ilaah u duceeyo adiga dhamaan dad kula mid inuu ilaah u maaragtay CDL-ka waa qofka dhan noloshiisa wuxuu ku shaqaysanaya weeyaan it's extremely important meesha hadda ka bariiseynayna marka haye walaal khayr bas fog insha Allah Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Idris fiicantiin alxamdulilah umamahad soo dhawow maxaa cusub oo taraban arkay sawirkiisa maduuyo kale u qas maya waxaan rabnay dadka inay caayaan baan rabay WhatsApp oo dhacday asagii yuhuudi waa qoorta iskula jiro oo markaa taasaan ku bilownay warka arkay waa soo yara daahay caawa wuxuu sameeyey waxaan rabay inaa war iga siisid traad bokiska iyo gaariga yar oo faanka maaragta lagu shaqaysto magaalooyinka dhexdeeda cargo banka cargo banka magaalada dhexdeeda waa gobolada dhan bay tagtaa ilaa Canada gaaraan oo banaankana u baxaan Soomaa
gobollo badan gobollada way tagaan qofka waxay ku xiran tahay kambanigu la shaqeynayo dabcan kuwa waa laga yaabaa oo gobol gudihiis ka shaqeeya way jiraan laakiin say u badan yihiin waxaa waye gobollada dhan bay tagaan oo in state ma jiraan soo ma waa la helayaa way jirayaan qasab way jirayaan iyaga midda kale kuma xirno leyskaaga yar caadiga ba iska wadanaysaa waxba kuma xirno baalkii kaargooga iyo saananka yar soo ma my box track wuxuu u baahan yahay class B box track class B u baahan yahay laakiin wixii ka hooseeya isaga waa iska leysiga caadiga ah way okay kayga wiilkan loo rabay marka maasha Allah at least waxban ka faa'iiday halka I don't know gobolku joogo ma garanay laakiin Ohio kale kuwa carabo waxaa jira mar walba raadiyaan isaga bank muu la imaanaya mase isaga rabo inuu qof u wado waxaan rajaynaa future-ka hadda inuu qof u sii wado laakiin in the future inuu gato kiisa better markaa gadato waxaa waaye shaqana waa helaysaa dispatchna waa helaysaa way kula shaqeynayaan keliya markaa laakiin qof u wado waxaa weeye percentage ku shaqaystaan lacag badan baa lagaa rabaa shaqadan ugu badan adaa qabanaya masha Allah waan kula soo xiriirin insha Allah isagana waan kula soo xiriirin si information u helo insha Allah السلام عليكم دريسو. السلام ورحمة الله. سيتاني حالدا. الحمد لله. نيو وحكاوري سر dadkii ay wantaatiga xareysteen oo xaaska iyo passport Kenyaanka wateen arimahooda intee marayaan ayaga passport Kenyaan passport Kenyaan xayiraad ma saarnaa maxaa laga warmaa isaga processkiisa iska caadiga marayay ليس جيرميا فبراير حرينه فبراير هذا هذا ay wantaatiga proof dhihlaayeen ma xayiraad guud ah jirto passport Kenyaan xayiraad saarnaa normal process baa maraysaa mooga laakiin passport Kenyaan qofka wato wax kama aanu maqlan wax qayli ah wax hadal haayo wax sheegayo as a matter of fact Kenyaankii waxay noqdeen ba wadamada hadda loogu jecel yahay markay noqoto Mareykan Soomaalida albaabka ka xirtay albaabka Soomaalida albaabka ka xirtay albaabka Soomaalida albaabka ka xirtay albaabka Soomaalida